عبد الرحمن محمد عبد الله العفو عاد حسن كوادي حسبك أعيد بروفيسور قاسم حنا كمدا مدحوينه ku-xigeenkii hore ee musharaxii madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid professor abiyan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer faysal cali waraabe mas-uuliyiin xisbigiisa ku jira واحد سنة هذا الحلم
ورولو جوجا مسكو ودا دغنا انيو ميكروفون ودا دغنا ورولو جوجا ديار بيتي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوكو الله يمقع نوع هالكن يبتو أخري دونا هالكن ديك أخري دونا والصحافة اللي سو صارين لما نحكي معارض وكل صابصن حالة دقون ودلكم ما أنت مريض شرعي ما أنت أو تاريخ تهاي لبي لواتن كبيش اللبات لما كوريا لواتن يسوي مادين لما حسب معارض أوعي بيه وطني هجان كود وهاي كلها فقورين كجنار رصدين موقف كي يجوان كلمة حسبي حالة دقوية دلكم ما أنت كتشرو وحنو بيجي هاي السدان ولا ليال ما أنت وهم وقته إن مصبيه وحب شيبتي كليجي تليه عكسنا صاري وضدي هور الله أيضاي غير كي يشان هذه دعارته قرآن كها أي مرة وهم وقته إنه بربرية ديمقراطية دي عردن كهاي الكوريني إسلام مركان تعبدني شعبي كان كجلاي وهم وقته إنه من شحابي قرن نمدي من نمدي ومدة سومالي لاند أو ما أنت كتشرته شي هورير سياسة وهم وقته ولي إنه حنتن يحفالتن وكرد جاي معمول كيد الله يجمعي إسلام مركانا وصيب بديرة يكتب مشاء وتشبيه دستور كي يحرر كيد الكن لها وحمان تان عدنا عاد كسرين إن هيده يا غلدي هيبت قرنك التاجن بين غدين سيد موسى كادي وحمرك مدونة إن موسى ما أنت عد والبع ودبرك وسو شيدي عد كسؤال حتى على كلا دلكن وناقنا الربطة يهرمر يشريتانك سومالي يجنا عصفة سومالي لان وهذا وده بي قوان كي وجنا في كل حي رجد إحدى حادثة أو صد إحدى حسبه وأقبله وحمانت الثلاثي سيبقوا عني كليجي هاي ودلك كوه جامين كانت إنه حال سيسق ودرّو خسارة تعب خسار وين وهذا قيدين إن موسى يسوي خياموينكي يضرب النادي عن نفتي سداف سنين ترجلين سودة ولا بضع قولة كده واقعي إنه فورا يور هذا السياسة ده كهر مدحلات كي أحزاب تقرن كدي مركي وكتخلصي قعنتي سجلان لبدي قولة قرن هي محكمة ده إفتين كقرح ضدك أبحي حكومتنا كهر تاجنا دبين دابيده هي خلطات كشوكتده أي كشفتوا هاي حسبية قرن طلابة وقاضي وبربرنت حسبية مدح بنان أو قرن أو يسقوا أركو عقبت إني كتهاي قرشهيسة كليجي ثالث نمو كهمي الرمهن أكله أو جتشيدو إنه عندها ضدك كتشيدي يفشلك كجدعي
siyaasadda arrimaha dibadda iyo hoggaaminta gudaha inuu dib u riixo doorashooyinkii qorshaysnaa sannadkan ee kala ahaa golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada si uu u helo isna muddo kordhin madaxtooye oo xaaraan ah inuu burburiyo xeer number 14 oo sida uu doono u qorto ugana ansaxsado golayaasha qaranka si uu soo saaro ururo iyo xisbiyo cusub oo xukuumadda taabacsan tallaabooyinkaas oo dhammaystiraya nidaamkiisa keliya talisnimo waa sharci darro in xeerarka loo beddelo dana gaar ah xeer kasta oo khuseeya doorashooyinka oo aan laga talagelin axsaabta qaranka ee ay khuseeyaan wax ka beddelkiisu waa sharci darro waana xaaraan nuxurka maanta ee shirkan jaraa'id waa sidan labada xisbi qaran waxay xalka iyo badbaadinta Somaliland ee marxaladdan maanta aan ku jirro u arkaan in doorasho madaxtooyo oo xilligeedii laga soo hormariyo ka qabsoonto dalka sannadkan gudihiisa 2020 maadaama uu muuse ku fashilmay hoggaaminta dalka in la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee ugu soo horreeyo golaha wakiilada isla sannadkan 2020 maadaama golahani muddo dhaaf yahay in ka badan 10 sannadood in sidoo kale la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee golayaasha deegaanka isla sannadkan aynu ku jirro 2020 waxaan fursad muddo kooban ah labada xisbi siinayaan dadaalka gudaha iyo beesha caalamka arrinta wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland madaxweyne muuse aniga iyo maxamed biixi yuunis waxaan kula kulannay Addis Ababa waxaanu nala wadaagay in isaga oo aan filaynin isagoo aan filaynin uu waqti kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula kulmay madaxweyne farmaajo Soomaaliya wuxuu nala wadaagay madaxweynuhu in ra'iisul wasaaruhu ku yidhi waxaan bilaabayaa oo dhexdhexaadinayaa wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee madaxweynuhu lama wadaagin safar ay ku soo aadan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo toona sida la sheegay kulan xog waran ayuu xubno u xushay madaxweynuhu kula yeeshay 15 February madaxtooyada kulankaas oo axsaabta qaranka lagu soo marti qaadin kulankaana laga sheegay hindisaha imaatinka ra'iisul wasaaraha Abiy iyo madaxweyne farmaajo taas oo muran cadho iyo jahawareer gelisay shacbiga Somaliland wararka imaatinka ee ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo hadallo isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyaha golaha guurtida arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummaddan run loo sheegin oo aan looga xog warramin wixii dhacay iyo wax hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dowladda Itoobiya oo saxaafaddana soo warisay wafdi ka yimid dalka Itoobiya oo inoo yimid oo sida la filayay siday jawaabtii xukuumadda Itoobiya midnaba lama wadaagin iyo wixii jawaabe la siiyay toona axsaabta qaranka iyo shacbiga Somaliland waxa waajib ku ah madaxweynaha
inuu arrimahan masiiriga ah si daahfuran ugaga warramo axsaabta qaranka iyo shacbiga reer somalilan oo mudan aad iyo aad baa mahadsan tihiin waxaan ku wareejin doonaa su-aalaha guddoomiyaha ku dari doono intii dhinayd intaad tabaysaan malaha الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي محمد سبحانه وتعالى إلهي محمد go-aankii horta kulankii labada xisbi saaka alxamdulilah waxaa guddoomiyaha idiin akhriyay anugu tahay waxa weeye waan si yara adkaynayaa waa ogtiinoo madaxweynaha muuse bixi iminka 2 sannadood iyo dheeraad buu joogay madaxtooyada 2 sano waxaanu ka shaqaynaynay muuse inaanu la shaqayno oonu ku dayno bal cooperation sidii ay waddanka inagu dhaclahay doorashadaasoo aad iyo aad inagu muhiima ayaa ahayd muuse waa si kasta waa yeelay dhibaanagu special labada xisbi waa isku keeninay qoladan wadada dhowr jeer baan ka kicinay meelo ay qabsadeen iyo ku mahadsan international community way noo yimaadeen go-aan bay nala gaadheen waan wada saxiixnay 2 jeer 2 jeerba hadda waxaa jabiyey madaxweyne muuse jabiyey mar uu baarlamaanka ilaa mooshinkii hahagelinina iyo mar uu xubin lagu muransan yahay oo sharcigu diidiyo intuu keenay weliba uu haddana yidhi reer baa diidan weligeen waynu arki jirnay xubin la diido wanaag iyo sharaf ka mudan somalilan ayuu yidhi haddii aan xubintaas celiyo sharciga aan dawdayn reer baa xanaaqaya oo waxayna soo marin taas waxaa kusii maskaxdiisa oo reer wax kale ku qufulan ma jiro waxa weeye muuse biixi wax kasta waa ku day 2 sannadood dalkeena muran ilaa muran ma ahaan dibadda ayaa waddanka xukunkiisii dibadda waa ka fadhiid buu ka noqday gudihii way urtina wasaarad qura shaqaysa ma jirto wasaaradda ay lacagta isoo ururin oo maanta cashuurta halkii marinayso ay naga wareegeen baacmisharigii oo dhan oo ay u wareegeen Djibouti iyo Boosaaso cashuur taa moojaane wax kaloo maanta wasaarad shaqaynaysa dalkeena farsan garanaysa ma jirto waa ogtiinoo dynamics baa ka socda geeska Afrika yaa ka socda isbedela ka socda isxulufa ka socda qaaradda lagu khaldayo lagu tartamaya adduunka maanta waa xeebteena waa reersiga maanta yaa reersigeeni ka bax yaa ka taliya waxa ka taliya farmaajo Djibouti oo ogtii inta xeebta ka gashay maanta xeebteena waxa ka taliya in yar oo farmaajo ilmaari ayaa ka wakiila oo gala shararka reersiga loo sameeyay muuse bixi ما وحي قوديه وبابيه هذا الدلكي وخيامه كسمه تليفون بقى لا يصدري طبعا كيف الديارات بسكفوره 800 مليون أو دولار oo la yiri Soomaaliya waxa la siinayaa marka laga dhaafo deynta ayaa la yiri boqolkiiba 30 baa yeelanaysa laakiin bishuruud la yiri farmaajo la kulma oo Djibouti kula kulma message-ka waxa siday ninkii intiiday international communication waanu diidnaa aqoonta naga fariid anagu gacanta hoos galsan mayna dawladda aanu heshiisay sidii boqol milyan baa loo sheegay هذا شيء واقع هنقليسي شنيا فرت المريض أيو دلكي سومان لكم حراش شنيا فرت من قوي شوي شوي محاسبة ما مدحوينها رئيس وزراء إثيوبيا فرحدي وحيو تجي ودك إلى إمارات وحي سومان لا دي سومان وهش الشيء وحي كعب سدين إنه الفرمات بحيو وكليا مقالان صحيح هاري كبعدنا الله لا هرجيسا لقينا الله صافت الشيكل كوتين ويبسنح سومان لا دو مكان دبالداي كدعيا حمد
هاشي مقام ساي ماشي قربهاريو كونفورودن الله أرينا ممكن صوص عليه هوي رجع دفتي معارض كها كنت هجنا له حلي وروا ما وين تساقط في الليل ما بش يوك عليه قلت وحس ما خيانة عدمة والسمير هذين ما أنت ترتقوا ليال الشعبنا يوم يصير تقشة وانك عن مركي لو يرى أورن حيوي يرسل وانك عن مركي وصون ومد ورهمين وحكوا ده حبلين وانك عن مركي مكويني أحمد شيدان وحكوا ده حبلين إلا ولا لما تشرب جارس كوارك هم صباح لي هبيني مي نقول كسر لما يسيبوا أفر ويصيروا يقولوا يحاول عشانه بطا ما كسر وشك وحي لكن نحن في الوشك كي مخ وكتجي مع موسى وكتجي مدحنمو يا الشرع وكتجي هذا وحنا وشينا هذو الشرع كتر والشرع وكتجي وحاو كو دقاقو annaguna sharci ku kala soconin madaxweyne noqon maayo madaxweyne Muuse bixibu noqonaya haduu ilaa ucdiya fuudwan baabiinaya oo sharci aan waqtiga aan geenaya oo shaar baan tolanaya waxaan leeyahay madaxweyne mati haduu bisha gudaheeda tobankii hadaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuur qaadanayaan ma jirto cashuur wuxuu moodayay abii bixiyo moodayay عشان شيء سواء بحية كلام كشري وحنا كاشرنا بعكس قاعد خاين كتولي وخاين من العظمة وي هيا لقوا حسمون ما أنت هير والدبل الجليل أنا مشوف هير كود وارك سو ما لو ويارك أدونك وارك وخاين أفكي شيء وكيس سلام هورا مش أنا قاعد كاسود يعني عفوينا هنقول نقول دوري أفوينا رجلي وأنا قردنا عداد دل كان أبيوس كيسو واكو ردنا هذا قاوم بحث الله بالله والسلام عليكم يا اللي بدهم ياظن حكارم الله